soo dhaweynta madaxweynaha Jubbaland State ayaa waxaa ka qayb qaatay dadweyne aad u fara badan oo isaga kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka London. madaxweyne injineer Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf ayaa dadka si weyn London ugu soo dhaweeyeen isagoo waliba gacan qaaday qaar ka mid ah marti sharaftii madasha fadhisay. waxaa sidoo kale munaasabadan ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedyada magaalada London iyo xubno ka socday maamulada kale ee ka jira Soomaaliya. madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa haddii aynu nahay jaaliyadda UK ee Soomaalida oo dhan qaasatan aniga ku hadlay magaca Galmudug mid qalbiya oo gacan ah oo raaliya oo farxad leh. waxaan u mahad celinayaa xafladan quruxda badan ee qiimaha badan dadkii Soomaaliyeed ee soo abaabulay. anigu waxaan ahay afhayeenka dawlad goboleedka Xiban iyo Xeeb. waxaan intaas kadib leeyahay soo dhawow madaxweyne Cabdulqaadir Maxamuud soo dhaweeyaan leen. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa oo gacmo furan ku soo dhaweynayaa oo qalbi furan ku soo dhaweynayaa anigoo ka wakiila Hiiraan State iyo dawladda Hiiraan State iyo shacabka reer Hiiraan. waxaan halkan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha Jubbaland State injineer Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf. Suldaan Khaliif aad ayuu u mahadsan yahay. iminkana waxaa wali inoo socda oo ku guda jirnaa odayaal dhaqameedka reer London. markana waxaan u wacayaa Suldaan Maxamed Xuseen mudane ku soo dhawow Suldaan Maxamed Xuseen. anigu waxaan ahaa suldaan Soomaaliyeed cinda suldaan uma qabiil gooniyo iyo janfo gooniyo uma ihi. waxaan leeyahay dadka Jubbaland State aan kamid ahay. waxaan ku hambalyaynayaa inay madaxweynaha la shaqeeyaan iyo hay'adaha kale oo la soo dhisi doono. madaxweynuhu kaligiis waxba ma qaban kariyo. hay'ado badan baa la shaqeey doona. hay'adahaas la shaqeynaya madaxweynaha in la shaqeeyo si hufan oo hagar la'aan loola shaqeeyo. Jubbaland State waa deegaan dheer dad badan baa degan oo Soomaaliyeed oo kala soconayn. waxaan madaxweynaha iyo maamulkiisa kula dardaarmayaa in dadkaas isu baadi doonaan oo sida ugu wanaag badan ay kula dhaqmaan oo haddii qaarkood madaxweynaha haday rabaan oo yiraahdo welcome ku soo dhawaada. war la yiraahdaa maharin waxa weeye waa soo dhaweyn iyo hambalyo. madaxweyne waa kugu hambalyeeynaa maamulka aad dhistay oo magaciisa la yiraahdo Jubbaland State. adigana waan kugu hambalyeeynaa waana kugu ducaynaynaa. waxa lagu noqnoqday oo la sheegay agagaarka Jubbaland State dadka degan inaad maamulka ka qayb galiso. anigu waxaan arkaa maamul ka duwan maamulkaas gobolada mataqaana maamul goboleedyada kale. markii aan fiiriyo Jubbaland State inta meelood oo uu lugaha kula jiro waxaan garan karaa inay tahay gogolkii Soomaaliyeed iyo nabadii Soomaaliyeed oo la fidiyay inuu taa dheer yahay maamulyada kale ilaa Somaliland ilaa Ethiopia. Jubbaland waa ku jirtaa Jubbaland State lug bay ku leedahay intaasay wax ka degtaa intaasay maamul la wadaagtaa. waa ka nasiib badan tahay maamulada kale waayo caawi ambassador ay u magacaabanaysa male. marka waxaan rajaynaynaa aqli iyo diin iyo garasho hadeed raggiga horeeyaa sheegay oo ciddu waxay la tahay Soomaali saldhigeedii iyo sharafteedii iyo gogasheedii iyo diintii dhan kasta oo loo eego raaca hore ayaad ku jidaan. waxaan ka rajaynaynaa oo ka dhowrnaa waxa weeye gogashii Soomaaliyeed iyo furuhii Soomaaliyeed iyo nabadii Soomaaliyeed inay ka soo ifbaxdo maamulkaas cusub oo la dhisay. rajo weyn baanan ka qabnaa. waxaan halkaan rabnaa inaan ku soo dhaweyno dadka walaalaheena ee ka soo qayb galay xafladan sharafta leh ee munaasabadeeduna ay tahay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha
jubba ras state anigoo ah afayeenka jaaliyadda Soomaalida diasporada UK waxaan hambalyo ballaaran u diraynaa reer Jubba Ras State waxaan kaloon hambalyo u diraynaa injineer Cabdulqaadir Maxamuud oo ah nin aqoon-yahana oo u soo baxay gobolkan Jubba Ras State wuxuuna noqon doonaa injineerkii lagu aayo oo mustaqbalka aanu higano annagoo dhan ummadda meesha horta isugu timid guud ahaan waan salaamaya midda kale waa ku faraxsanahay aniga weli xafladda iigu horeysay oo yani maamul goboleed lagu dhisayo horta aan ka soo qayb galay waaya habeenka caawa taasna sababteeda waxay tahay maadaama jubba wixii yani jubba ras la yiri ma aragtay maanta madaxweyne cusub ay doorto waxa uga soo qayb galay maadaama jubba haddii aan sportska aan ahay meesha kaliya oo ciyaaraha ama wax ay ka furmi jireen inay tahay marka ugu horeyso waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Jubba Ras State iyo maamuladii ka horeeyay ee la dhisay iyo kuwa ka dambeeya ee soo socda waxaan u maleynaa halka Soomaaliya inuu ku jiro maamulada hadda socda kuwii la soo dhisay iyo kuwa ku dambeey doona badii Ilaahay waayo waxaad ogtihiin dawlado badan in la soo dhisay maxamed siyaad baraka dambeeyay wixii ka hor yimaada waxay ahaayeen looma dhama inay dadkii ka tiro badataan u malaynaa hadda marka haddii cid walba looma dhama dhihi jirta hadday maamul samaysato waxaan u malaynaa in dhulkeeda nabad noqon doono hadda marka ugu horeysa waxaan mahad u celinayaa madaxweynaha Jubba Ras waxaan sidoo kale mahad u celinayaa wakiilada maamul goboleedyada halkaan fadhiya oo halkaan taageerada ka bixiyay sidoo kale wakiilada jaaliyadaha kala duwan ee Soomaalida ah oo nagala soo qayb galay xafladda tan fanaaniinta halkaan shucuurta Soomaalinimada ka muujisay ragga waxgaradka oo halkaan fadhiya gabdhaha dhammaan intaas ayaan mahad ugu celinayaa ka soo qaybgalka xafladdan ay ka soo wada qayb galeen waxaan mar labaad haddana aan leeyahay madaxweynaha Cabdulqaadir inuu ku soo dhawaado barnaamijkan sidoo idin sheegay xiriiriyaha barnaamijka anigoo gobolka ayaan wadanka ka soo noqday mar dhow khaas ahaan dhinaca Jubbada Hoose Jubba Ras State aniga deegaanada dhan waan ka soo shaqeeyay waan aqaanaa ma aragtaa hadda waxaan noqday oday dhaqameed aan noqday laakiin markii hore oo yaraa waan ka soo shaqeeyay ilaa ma aragtaa jilib baan joogi jiray waxaan joogi jiray Jamaame waxaan joogi jiray Kismaayo waxaan joogi jiray meesha la yiraahdo Homboy hataa waan tagay marka waxa waaye waa aqaanaa sida loo degan yahay waa aqaanaa waxaan leeyahay Ilaahay ku guuleeyo caawa runtii aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan weyn ee loo sameeyay maamul goboleedka Jubba Ras runtii Jubba Ras waa qayb aniga iga mid ah haddaan ahay SSC Jubba Ras waa qayb aniga iga mid ah waxaan mid kale halkan salaan iyo bogaadin uga soo jeedinaynaa madaxweynaheena injineer Cabdulqaadir Maxamuud oo halkan caawa maartay inuu xafladayno xilka uu qabtay waxaan u arkaa sida laynoo sheegay maamul goboleedkanu wuxuu waafaqsan yahay ujeedooyinka dadka intii waxgarada ee nabadoona ee wanaagga Soomaaliyeed doonayso oo dhani ay daba taagan yihiin oo ah maamulkii Soomaaliyeed iyo dawladnimadii iyo qarannimadii burburtay oo la raadinayo in dib la isugu soo celiyo oo dhibaato badanina dadkii ay ka haysato ayaa dad badan waxay ku tilmaameen inay tahay Soomaali burburkeedu mid la mid ah ama lagu tilmaami karo weel dhoobo ah oo dhulka lagu dhuftay oo kala jajabay oo ay dantu noqotay in la isku celiyo oo weelkii dib si loogu soo sidoo ahaa loo soo celiyo la isku kabkaba jajabkii yaryaraa oo xabadba meel intii ay meesha ka jabtay lala doonto ujeedada dhow iyo ujeedada fog ee loo aas-aasay maamul goboleedka Jubba Ras State aan ka soo bilaabo Galmudug Himan iyo Xeeb Hiiraan State wax iyo waadi maamuladaas in la mideeyo
oo la isu keeno oo gogosha maamulkan Juba Ras State madaxweyne ka yahay Injineer Cabdulqaadir ay dhigaan. Juba Ras State waa maamulkii dhawaan lagu soo dhisay dalka Sweden iyadoo waliba qaar ka mid ah aasaasyaashii reer Sweden ay munaasabadan ka soo qayb galeen. fanaaniinta reer London ayaa iyana ka qayb qaatay munaasabadan soo dhaweynta madaxweynaha iyadoo ay horkacisay Maryan Mursal Ciise. dumarka oo ah hormuudka nabadda ayaa iyana halkaasi ka hadlay. waatan Muraayo Cumar Rooraaye oo kaalintii haweenka u hadashay isla markaana tixgabay ah halkaas ka soo jeedisay. waxaan hal dardaaran yar oranaya madaxweynaheena ma sha Allah Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf waxaan leenahay Cabdulqaadir ilaahay ka dhiga kii hanta hawshiisa kii ka soo qayb gala oo horumar gaarsiiya dalkiisa iyo dadkiisa. gobolada idilna gurigeena baa ku yaal gudaha Soomaalidir waan ku gaabsanay oo gaar ahaan Jubbooyinka gees gudbaan degnaa oo jidda jilibiya jamaama jidkeenu yahay jahada waamo dhamba jeeska laga hela jannadu weeye dhulka aan ku sheegana aamin aamin. waxaan markan jeclahay inaan halka uga yeero ujeedadeena ugu weyn ee caawayna isugu nimid munaasabadeena quruxda badan oo ah soo dhaweynta iyo hambalyeynta madaxweynaha Injineer Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf ee Juba Ras State. marka Injineer Cabdulqaadir madaxweynaha ayaan markan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka si aynu u dhageysano ereyada kooban ee uu inoogu talagalay isagoo aad u jeclaystay inuu dadkiisa la kulmo oo waliba aanu ahayn nin halka joogay ee aad garan kartaan halka uu ka yimid inta mayl oo kun ay jirto. waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan waa maxay Juba Ras State. haddaan wax yar idinkaga sheego Juba Ras State waxaan matalaynaa dhammaan dadka shacabka gobolka. waxaan u taagannahay jiritaanka Soomaalinimo. waxaan ka talinaynaa nabad iyo maslaxadda gobolka iyo wada noolaansho wanaagsan oo horukac u leh inta deegaankaas quseeyo. sidoo kale maamulku waxa uu u baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan ee ka shaqeeyaan maslaxadda iyo nabadda dalka Soomaaliya. haddaba jaaliyada ballaaran ee reer London ayaa maanta sida aad arkayseenba madaxweyne Injineer Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf halkan si wada jir ah ugu soo dhaweeyay. si kastaba ahaatee jaaliyada ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo waliba halka loogu magac daro Ras Cambodia ayaa munaasabadan maanta si weyn uga qayb qaatay. Raahan Umar Baafe, wararka Universal, London.